dhawaanayay ahayd markii dhaawacyo loo geystay Cabdirasaaq Axmed oo ku magac dheer Cabdirasaaq Qorayo kaas oo ku nool magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal. Haddaba maruu maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka sheekeeyay qaabka ay dhaawacyadan u soo gaadheen iyo cidii gaarsiisay waxana hadaladiisii kamid ahaa. waxa weeyaan hore waxoogaa yaro qoraalaan Facebook-ayga aan ku baahiyay oo ahaa cidda ka dambeysay falka iyo sidii wax ii gaadheen anoo soo koobayay waxaan doonayaa inaan idin cadeeyo sidii wax igu dhaceen. horta waxa weeyaanay labadan wiil ee garbahayga taagan waxay ka soo jeedaan waa qoyskii reer Dabshid weeyaan. ninka wixii gaarsiya gacanta igu dhuftana iyo nimanka kale la socdayna waxa weeyaanay waa walaalkoogii yaraa oo Mukhtaar Dabshid weeyi. Mukhtaar waxa la waxanaga naga dhaxeeyay ma jirto laba nin oo dhalinyaro magaalada wada joogun baan ahayn laakiin marar badan sidoo walaalkeen maxay Ismaaciil ba sheegay telefoonu uu soo diray hanjabaada isaga nimanka kale habeenka la socday ninka Nuux la yiraahdo kamid yahay iyo niman kale oo sirdoonka magaalada ku jiro isku jifo u yihiin laftoodu inay gacan ku leeyihiin waa la ogyahay laakiin waxa weeyaan waxna wuxuu ku fiican yahay saldhiga iyo marka maxay ahayd gudaha la joogo waxna miidiyuhu ku fiican yahay hadalka wada oran maayo alxaasil muraad gacanta waxa geystay ninka Mukhtaar Dabshid la yiraahdo aniga litirka igu dhuftay halka gurigayga sarrataadii soo adeego timaadeen anigoo dul jooga qolkayga iska fadhiya nimanka kalena banaankii ku sugayeen isla habeenka gacantu ay igu dhacday waxa weeyaan wasiirku casarkii buu soo galay ninkaasi waxa igu maqaalay inuu yeeray inay wada kulmeen iyagoo horena hanjabaad aniga hawada igu soo mariyeen waka walaalkiyaan kaga dacwoodan ku uri walaalka arinta nooca ah ee Facebook qoraalkan ku sameeyay walaalka igu hanjabaya isagoo ila wasiirka dadamaan si wada gacan ku leemanaya Mukhtaar wakay hor jooga waan kaga dacwooday wuxuu igu yiri anaga ku maxay hayday wada ka marinayna hase ahaatee way la hadleen oo qoys ahaan bay kula hadleen waa qaadan waayeen inankii hawshii gacantii adu way gaadhay waa qadarta Ilaahay waa wax qornayd alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waan caafimaad qabaa. waxaan leeyahay nabarku uu gaaray masamxuma oo darag waxa weeyaan garna waa lagu dili gardarna waa lagu dili qadartuna waa halkeeda laakiin wali cadaalad maan helin sababtan cadaalad u helaayana waxa weeyay ninkii nabarkay gaarsiiyay ninkii soo dirsadaba haddana gaarigiisa ku sii qaatay oo waxa la sheegayaa inuu gurigiisa Hargeysa ku haysto siday walaalihiiba ka dhawaajiyeen cidii soo dirsatay inay meel ku biilanayaan awalba markuu wax soo dilay uu tagay jiray hadduu cid wax soo gaarsiiyo oo ama magta ka bixin jiray ama maahe waxa weeyaan ma la xaali jiray ama xiran jiray ama cid la xaali jiray laakiin maanta ma hayaan waka walaalkiiba sheegaya waxa weeyaan ninkiiba gaariga ku qaatay gurigiisii meel dhex jooga geed gaaban iyo geed dheerna wuxuu u fulayaa sidii aan cadaalad ku heli lahayn oo ayna ceebtaasi isaga ugu cadaan lahayn oo inuu shirqoolkaasi ka dambeeyay ayna dibadda ugu soo bixi lahayn hadalka anigoo aan sii badinaynin waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo dhibta inta la iga gaadhay haddana oo waliba iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda gaar ahaan ummadda Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland oo joogo aan waxaan dhibana u ahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan dhibana u ahay laamaha cadaaladda waxaan dhibana u ahay guud ahaan dawladda Soomaaliland iyo xukuumaddan dhibana u ahay waxaan doonayaa inaan cadaalad helaan waxaan doonayaa in sharciga la ii mariyo wasiirku sharciga kama weyna madaxweynuhu sharciga kama weyna qof kasta sharciga hortiisa bilaadanku way u siman yihiin sida constitutionka iyo dastuurka Soomaaliland ku qoran qof kasta sharciga waa loo siman yahay wasiirka inaseed ee ii soo adeegsaday inankaasi iyo inamadaasi haddana baabuurkiisa ku qaatay meel ku biilanaya ee waxa weeyaan askartii soo qaban lahayd guri wasiir uma gal karayaan cid kama eegayso marka mudane madaxweyne anu nin shacabanahay waxaan waxa weeyaan wasiir lama tartami karo laakiin waxaan doonayaa cadaalad baan doonayaa haddii cadaalad la waayana dilku wuxuu ku xigaa marka cadaalad dhacdo waxa loo soo dagaalamay ee dawladda Soomaaliland u soo dagaalatay ee ay maxay ahaydey qaran dhan loo soo burburiyay waxa weeye cadaalad darray ka bilaabantay wixii dawladda Soomaaliyeed loo dumiyay cadaalad darray ka bilaabantay aniguna maanta tiibaan ka cabanayaa shakhsi bayna ka bilaabantay cadaalad darradu qolo kama bilaabanto waxa weeyaan qabiil kama bilaabanto gobol kama bilaabanto shakhsi bay cadaalad darradu ka bilaabataa taan baa sii durugtay waxaan doonayaa in laamaha cadaaladda la ii hor keeno wasiir Axmed Muumiseed anigoo cadeyn buuxda haysta Geesta kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay wiilka dhibta u geystay Cabdirasaaq Qorayo walaalihii oo booqasho ugu yimid waxayna ka warbixiyeen sababta ku kaliftay walaalkood inuu dhibtan u geysto wiilkani waxaan hadaladoodii kamid ahaa
oo gacan gardan ay ku dhacday waan ka xumahay ma jecleen inay walaalkay gacan gaadho haday gaadheen in aniga gaadho ma jecleen marka horta qoraad baan ugu ducaynaa inuu caafimaad taama siiyo dibta soo gaadhay rag walba way soo maraan inuu caafimaad taama siiyaan 100 jeer ugu ducaynaya inuu caafimaad siiyo ilaahu caafimaadka uu booqday baan leenahay nabarka soo gaadhay waa nabar weyn dib weyn baa ku dhacday hadda waxaan taaganahay gurigiisa halka lagu dilay way waxa walaalkay lagu dilay waa shirqool cid loo adeegsaday waxa kamid ah walaalkay iyo inaan kale waa la wada garanayaa waan ku baadi jirnaa soo qabashadooda hay'adaha amniga waxaan faraynaa inay tallaabo ka qaadaan meel kasta ku arkaan anaguna waxaan ka gacan siinaa soo qabashadiisa waxaan aaminsanahay in la isticmaalo walaalkay isaga shakhsiyan Cabdirasaaq wax ka dhaxeeyay ma jirin gacan baa ku jirta ina ka dhaawac gaari markaan wareystaan u yimiday wuxuu ii sheegay walaalkay in lagu isticmaalo wasiirka beeruhu waa nasiib dar aad baan u cabaaraynaa in wasiirka beeruhu isticmaalo inaan iga yaro walaalkay inuu u isticmaalo ina kale oo miidiyaha wax ugu qorqoray annagu hadaan nahay reer dabshid waanu cabaaraynaa kuma jirno ka qayb ma nihin kuma lihin dilka ninkaana waan ka xunahay ee kuma faraxsan cid kasto ku lug leh hay'adaha dawladda waxaan faraynaa waxaan u sheegaynaa waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo ka qaadaan annagu waan baadi goobaynaa mar alla markaan qabano sharcigaanu keenaynaa aadna waan uga xunahay waxa gaadhay dawladdana waxaan leenahay waar idinkaa dawladee waa la qarsanayaa ninkee awal hadduu wax geysta annaga aan u bunooymanayay hadduu aniga iman waayo Ismaaciil buu tegey Abdullaah buu tegey maxamed buu tegey damaay dhicin waxa ku calaamad in la isticmaalay cidii isticmaashay baa wali haysata kharash u diraysa meel ku xajinaysa inta ninka dhaawicii ii sheegay waa wax runa waayo anigu iman laha oo la wadin baa soo dilay dawladda ka bixi shirqool baa lagu dilay rag baa dilay in iyo laba maaha waa rag la darsaday way kuwa koox waxba warba ku cusub ay yimid hebel hadii la caayay hebelka caayay in la soo dilaa timid arkaasina waa arrin baan dheer gaarsiinaa madaxweynaha iyo cid walba qosayso haday taasi bilaabato isku duwaha la caayay ama dadka u leyn doona waa arrin inagu cusub hebel ma maalin wax iga qoray soo dila waa arrin adag anagu waxaan leenahay walaalkay iyo ka kale wax dilay ba sharciga halkan hay'adaha sharcigu ha qabtaan kan gacantaan ku haya dhaawiciisa gacantaan ku haya laakiin sharciyada in laga tago ma rabo waxa rabaa in walaalkay iyo ka kula jira iyo ka dambeeyay talaabo laga qaado haday nagu kalifaysa in aanu saxino dawladda in xabad lagu dhufto waa saxina waayo waxa maanta ninka gaaray oo ku dhintay wax qof ku dhintama hebel baad wax ka qortay cid kuma dhimato wuxuu cadaynayaa uu noor fadhiyaa imka inkastoo dhaawac weyn qabo wuxuu cadaynayaa iyadoo markhaatigii uu haysto tiraba dhowr qof in loo yimid oo la yiri hebel baad cayday George gar loo qaaday teetolo mataqaana xitaa wixii uu qoray uu ka saaray oo gacantiisa saareen heshiin haddana kii laga tagi waayay cadayta isaga haya annagu waxaan leenahay madaxweynaha waxaan gaarsiinaa war wasiirka isticmaalaya inuu yar kharash iyo hebel soo dil talaabo laga qaado kala dareemo walaalkay waxaan dawladda u sheegnay in dawladdu shaqadeeda qabsato annaguna waanu soo qabanaynaa gacantayadaan ku soo qabanaynaa waanu ka hawlgalaynaa cid kasto arrinka ku lug leh telefoonadii waa la baari karaa wax walba loo ogaan karaa dhibanihi baa hoos fadhiya dhibanihi wuxuu leeyahay adii ma dil waa la ka soo isticmaalay buu leeyahay waa la ka soo isticmaalay annagu waxaan cid soo isticmaashay walaalkay hal gaadho walaalkay hal soo qabto anaguna waxaan diyaar u ahay meeshaan lagu sheego waan tagayaa hadda hargeysa lagu sheegaya waan baxaya meel walba waan tagaynaa waan isqaybinaynaa waan ka hawlgalaynaa hay'adaha amniga waxaan sheegaynaa waar meeshaas ku agtaa ma soo qabto السلام عليكم horta marka koowaad ilaahay baa mahadle marka xiga kulankan maanta wuxuu daarayay booqashaan ugu midna walaalkayo Cabdirasaaq qorayo oo ay gacan ka xaq daran ay dhaawac xun gaarsiisay aad baan uga xunnahay waa maalin jimcaha ilaahay waxaan uga baraynaa inuu ilaahay caafimaad taama ugu deeqo intaa markaan ka imaado Cabdirasaaq anu waxa kamid ah raggii uu maalintii uu la soo hadlay ka mid ah
soo qaracay wuxuu igu yidhi wasiirka beeraha ayaa ii soo adeegsanay inamo reerka markaa ismaaciilow arrintaa wax igala qabo waaye baan idhi anigiyo nin abtigaya deeto in arrintii inaan dhex galnaan isku daynay waxaan u soo gaadhnay waniyo adigu wasiirka beeraha haddii wax laga sheegay haddaan wax laga sheegin alla wax kaa galay ma jiraan ee waxaa dhici kartaa labada qof is qabtaan si ay u kala baxaan bay leeyihin faraha kala bax waayo annagu wax dhibaato ama howlo dhex taala anaga iyo cabdirasaaq iyo guud ahaan reer Garoyaba haba yaraatay ma jirto waxaan walaaltinimo ahayn arrintani deeto hadda dhowr cisho laga joogaa maanta arrintaas soo sheegay deeto cabdirasaaq waxaan ku dhahay cabdirasaaqow arrintaa waan dhamaynaa anaga la hadalnay waxa loo wax ku soo galaya haba yaraatay ma jiraan iska xagee ka ammaanka aw alxamdulilah adigu dee sidii aan anagu nidhi way dhacday laakiin annaga waxaa naga tabar badatay fan iyo adeegsi uu isticmaalayo ninkaa uu cabdirasaaq noo sheegay wasiirka beeruhu maanta ma ahayn kiinanu adeeru yahay sidaa u dili lahaa maanta waa dhagar kiis dhagareed wey kiiskani annaga walaalkayo sida saxdaa markaan ka hadlayno walaalkay wax dembiya ma gelin laakiin ninka dembigaa galay ee isagu ka dambeeyey ee fal ku bixinayay qof bilaadan la dilo ayaa dhagar qaba loo qoosay hadduu moodayo inuu sidaasi diibaantiisu ku jirtana wallaahi wuu khasaaray mid kalena way taalaa meesha waxaad bala iyo baas dhex dhigtay reero walaalahaa ilaahay waxaan kuma hadlaqaynaa cabdirasaaq Garoyo reerku ka soo jeedaayba inay kaa maqli waayeen balaayadaada oy dhabarkoogii yeesheen oo adkaysi yeesheen annagu annagaa maanta oo nimidnay walaalkii raaligin ugu nimidnay ducaa ugu nimidnay umaanaa nimaadnay haddaan anagu kiisiya dhagar ka galnay dhagar qabe waa adiga wey waxaana kuu sheegayaa balaayada aad ummadda ka dhex raadinayso inuu ilaahay meel kale kaa siiyo adiga ilaahayna caafiya addoonka dhibaatadu gaadhay walaalkayo waa jiirkaygii waa dhiiggaygii waan jecelnahay sidaa xune wax u dhaceen anagu laakiin kuma garab joogno sharciga iyo cadaaladda in la mariyana annaga garab joogno inaanu soo qabanno oon keenno sharcigana marna annagaa jecel laakiin ayaandarrada ugu weyn waxa weeye qof dhan oo ummad dhan wasiir u ah oo xukuumad dhan ku jira inuu maanta ku dhaqmo daahir cala soo sheekadiisi waa ayaandarro weyn wey cabdirasaaq Garoyo oo aabihiya iyo guud ahaan reerka ku soo jeedo waxaan leeyahay war tolkayo walaalahayow raalli ahaan ranaga raalli ahaada qalad baa ka dhacay meesha waxaan ugu talagelin baa dhacay hadda wixii ka dambeeyay sanad kale waaba loo diyaar garoobi doonaa wala iska ogaan doonaa maanta waxaa nagu dhacday adiga ku dhacday annagana waa nagu dhacday waxaan 1 iyo 2 iyo 100 jeer ka raali gelinaa dhibta ku soo gaadhay waxa ku soo guraanadaya waxaan leeyahay madaxweynaha halkan waxaan fariin u diray madaxweyne de waxa social media ku aragnaa dhaliilo fara badan wasaaradda dhaliilayo mucaarada dhaliilayo maxaafadda dhaliilayo adiga xataa lagu dhaliilayo wali ma laan maqal hebel u dilay waxba la iga sheegay ama dhaliil baa la sheegay war haddii la yidhi wasiir waad ku fashilantay siyaasaddaadu xisbiga kulmee dhulkaad la gashay waad ku baabaaday dee aniga agteeda kama ahayn in mataqaanaa ay cadaawad ahayd waxay ahayd inuu isagu sasaxo qaladaadka jiray la sheegay inuu saxay laakiin inuu qof dhan idhaa u dila oo waxna madaxweyne waxa ku leeyahay arrintaasi waa arrin adiga ku taala sinaba kagama tegayso in wasiirkaagu waxaa isticmaalo qofkaad xilka u dhibatay waxaa isticmaalo waa arrin adiga ku taala weyn waxaan kaa warsugaynaa adiga laftigaagu annagoo hay'adda cadaaladda si guud uga warsugaynaa waxa arrintaasi inay anaguna ka caawinayna hawsheeda gacan talaabadeeda ka qaadaan adigana waxaan kaa sugaynaa jawaabtaada iyo kaalintaad ka qaadato diilan cabdirasaaq horta waa xubin ka mid ah guddida siyaasadda beesha habar cafaan waana uu gudoomiye hogayahay axmed muumin soo inaanad ka teetil sarreenin horta halka ku ogow midna waxaan doonayaa inaan xasuusiyo madaxweyne Muuse Bixi Jamaal Cabdinaasir khalad caynkan oo kale oo gurigiisa soo galay oo inanku sodoga uu ahaa soo galay wuxuu la tiigsaday sharciga inta la qaaday baa ninkii fooq laga soo tuuray khaladkii uu qaranka ka galay tanna waa dil taa waxaan leeyahay madaxweynuhu qoraal aan ku qoray geeska Afrika 2019 waxaan madaxweynaha Soomaaliland madaxda caalamka ninba waxbuu kaga dayday ilaalinta sharciga ayaan u soo qaatay tusaale inuu Jamaal Cabdinaasir kaga dayday waxa kale uu sheegay Axmed Muumin Seed madaxweynaha dhan ee ku dirtay ma ogtahay inuu isaga laftiisu warbaahinta ka yiri wixii dhaliila aan leeyahay cidna ayaan loo qarin warbaahinta idaacadda iyo TV qaranka Soomaaliland laga sheego adiguna inaan aad wasiir u tahay ayaad maanta damacday inaad madaxiisa naftiisa ku goyso ku aamusiiso
waxa kaloo aan leeyahay haddii aan annagu nahay dadku si guud arrinkan u taabanayo damqasha naga haysa waannu ka xunnahay wuuna dhibayaa wuuna taabanayaa waxaanan leenahay ilaahay marka koowaad nabar gardarraha uga dhigo taa markaan ka imaaddo waxaan leeyahay arrinka cabdirasaaq arrin beelnimo iyo si kale wax lagu xalliyo wuu ka duwan yahay arrin ay guddiyadayada kala duwan kuwa horumarinta iyo kuwa siyaasadda iyo kuwa dhaqankuba uu suldaanku kow ka yahay arrin ay ka hadli doonaan weeyi arrin uu aayaru intuu habeen madow qof la soo diro habeen madow magaalada lagala baxo ku dhammaanayo ku bilaabmaya inaanu hayn waxaanse maanta aan ka jeclayn axmed muumin seedow halkaad shirqoolka iyo dilkaaad kaga dhaqaaqday adiga oo guul ka soo hooyo guulihii xisbiga kulmiye iyo hawshii qaranka laguu diray annagu khaladkaaga addeeci mayno khaladkaagana raaci mayno way jirta hadda ka hor qoraalo waxaad qabatay aanu ku tilmaami jirnay hase haatee maanta adaa gacantaada isku gowracay Sikariya Cabdi Shaafaar Sikariya Saxane magaalada Boorama